soo dhawaada mar kale maanta waxaanu baran doonaa noocyada kala duwan ee luuqad loo barto. Inta la ogyahay waxaa jira 4 nooc oo kala duwan oo luuqad loo baran karo. 4taasi nooc waxay kala yihiin: midka koobaad u dhalasho, in aad luuqadda u dhalatay ama aad tahay native speaker. Native speaker wax kale ma aha, waxa weeye haddii waalidka ay luuqadda kugu dhaleen, wadankii luuqaddaasi looga hadlayay aad joogto oo xafiisyada, iskuulada, gurigii, meel kasta luuqaddaasi lagu hadlayo, waxaa tahay native speaker. Nooca labaad waxa weeye heritage, in ay kugu soo gaadhay ama dhaxal. Waalidka ayaa luuqadda u dhashay, laakiin adiga wadan qurbe ama foreign country ayaad ku dhalatay ama aad ku kortay. Gurigii luuqaddii ayaa looga hadlaa, laakiin banaanka markaad usoo baxdo luuqad kale ayaa lagu hadlaa. Markaasi heritage ayay kugu soo gaadhay luuqadda, sidaas ayaad ku baratay. Nooca saddexaad ee loo baran karo luuqad waxa weeye in aad tahay academic learner ama iskuul aad ka baratay oo macallin uu kuu dhigay. Nooca afraad waxaa la yidhaahdaa street learner, ama in aad jidka ama wadooyinka aad ka barato iyo suuqyada. Noocaasi limitation ayuu leeyahay ama xad, oo markaasi waxaa kaa maqan writingkii, qoraalkii, readingkii, akhriskii iyo grammarkii oo naxwiye ah. Marka haddii aadan native speaker ahayn, heritagena aysan kugu soo gaadhin, nooca ugu fiican ee luuqad loo baran karo waa in uu macallin kuu dhigaa ama aad iskuul ka barataa oo aad tahay academic learner. Sababtoo ah markaasi waxaad baranaysaa dhammaan shuruucdii iyo grammarkii iyo naxwihii luuqadda. Grammar ama naxwo wax kale ma aha. Grammar is the correct way to write or speak a language. Waa sida saxda ah ee luuqad loo qoro looguna hadlo. Mar haddii aynu soo sheegnay 4 nooc ee kala duwan ee Englishka loo baran karo, oo aanu nidhi jidka ugu fiican ee loo baran karo waa in aad noqotaa, haddii aadan mar ahayn native speaker, aadan ahayn qof ay heritage ku soo gaadhay, nooca xiga ee ugu fiican ee loo baran karo luuqadda waxa weeye in aad noqoto academic learner, qof iskuul ka bartay ama qof uu macallin u dhigay. Sababtana waxa weeye marka aad academic learner tahay, waxa aad baranaysaa luuqadda adaabteedii waxaan ka wadaa, yacni meel kasta ereyada ku habboon ee loo isticmaali karo ayaad baranaysaa, sida waxa la yidhaahdo formal iyo informal. Waxa rasmiga ah ee sida xafiisyada oo kale markaad joogto sida aad u hadlayso, iyo sida asxaabtaada iyo qoyskaada marka aad la joogto sida aad u hadlayso, aad bay u kala duwan yihiin. Marka waxaad baranaysaa luuqadda adaabteedii, sidoo kale waxaad baranaysaa naxwihii iyo grammarkii, sidoo kale akhriskii iyo qoraalkii ayaad si fiican u baranaysaa. In badan waxaa igu soo noqnoqda su'aalaha la i weydiinayo oo ah, luuqadda sideen ku baran karaa? What can I do to improve my English? Maxaan samayn karaa si aan ingiriiskayga aan kor ugu qaado? Video ayaan hadda ka hor ka soo sameeyey oo aan kaga hadlayo waxyaabaha aad samayn karto oo markaasi kuu fududaynaya in aad luuqadda si sahal ah oo weliba degdeg ah aad ku barato. Haddii aan mar kale si kooban aan ugu celiyo oo aan dul maro waxyaabaha aad samayn karto ee aad luuqadda si fudud ugu baran karto, waxa weeye tallaabooyinkan soo socda. Marka hore waa in aad badisaa dhegaysiga, listening. You have to listen. Waxaad dhegaysanaysaa idaacadaha iyo telefishinada ku baxa luuqadda aad danaynayso in aad barato, wararka, ciyaaraha, waxyaabaha noocaas oo kale ah. Dhegaysiga ayaad badinaysaa. Weliba waxaa fiican in aad dhegaysato wararka oo ku saabsan wadanka ama magaalada aad joogto. Local news waa warka oo deegaanka ama meesha aad joogto. Sababtoo ah toobigii iyo wixii laga hadlayay iyo wixii dhacay waad ogtahay, informationkii waad haysaa. Marka aad dhegaysato luuqaddii aad baranaysay oo warkii lagu akhrinayo, wixii aad ogeyd oo waxaad maqlaysaa oo af Ingiriis lagu sharxayo oo lagu sheegayo, markaasi waxaa kaaga baxaya oo aad ka fahmaysaa erayo cusub iyo sidoo kale sida la isugu xidhxidha ee loo sameeyo. Sidoo kale akhriska waa in aad badisaa, siiba sheekooyinka gaagaaban iyo sidoo kale buugaagta caruurta ee children's books la yidhaahdo. Sababtoo ah
luuqad aad u fudud ayaa ku qoran buugaagta carruurta oo bilow ah marka aad luuqadda baranaysana aad ayay ku anfacayaan in markaasi ay luuqadaadii ay hoos ka soo dhisaan. sidoo kale qoraalka waa in aad ku dadaashaa oo aad in badan aad qortaa, sababtoo ah qoraalka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. waxaad ku baranaysaa spellingkii, waxa uu ku noqonayaa practice. sidoo kale waxa aad qortana xasuus oo wuxuu reebayaa oo permanent memory ah, yacni in badan ayaad xasuusnaanaysaa wixii aad qorto. markaasi haddii aad just warqado iyo buugaag iyo aad akhriso ama aad computer iyo shaashad aad ka fiiriso oo aadan qorin, wax badan ayaa kaa dhiman oo kaa maqan. markaasi qoraalka marnaba ha ka caajisin. sidoo kale speaking, hadal ku hadlid, waa in aad ku hadashaa luuqadii oo aadan ka cabsanin. haddii ay tahay ama ardayda aad isla baranaysaan aad iskula hadashaan, ama dad native speaker aad iskula hadashaan, ama magaalada markaad u baxdo aad dadka kula hadasho, waa in aad speaking samaysaa oo aad luuqadii ku hadashaa. khalad inaad samaysana aadan ka baqanin. sidoo kale marka aad luuqadda ku hadlayso, dadka aad kula hadlayso waxaa laga yaabaa haddii ay yihiin dad luuqadda yaqaana, waxay ku siinayaan feedback ama sidii aad ugu hadlaysay wixii aad khalado way ku saxayaan, waad ka sii baranaysaa. markaasi ku dadaal speakingka. sidoo kale waxa aad samaysaa in aad vocabulary-ga iyo new wordska aad ururisaa oo aad markaasi buug gooni ah aad u samaysataa. ereyga cusub markii aad maqasho ama aad barato, buug ayaad ku qoraysaa, sida loogu dhawaaqo oo aad af Soomaali ahaan u qortay ayaad ku aqoraysaa, macnihiisa oo af Soomaali ana waad ku aqoraysaa. markaasi buug oo aad new wordska iyo vocabularyska aad ku aruriso samayso, markaasi sidaas samee. sidoo kale buugaagta oo textbookska ama qoran marka aad akhrinayso, ereygii kugu cusub oo aad ku aragtaa, waxa aad samayn kartaa dhinaca geeska oo buugga ayaad ereygii intaad hoosta ka xariiqdo ayaad macnihiisa ku qoran kartaa. sidaas ayuu vocabularygaada ku dhismayaa, ereyadaadana ay ku badanayaan maalinta ka dambaysa. maalin walba isku day in aad barato ugu yaraan 5 ilaa 10 erey oo cusub. maalin walba ereyadaasi aruuri, isku day in aad barato ereyga macnihiisa, ereyga ka soo horjeeda ama oppositekiisa, sidoo kale synonymkiisa ama ereyga u dhow macno ahaan la midka ah. siyaabahaasoo dhan luuqadaada way kobcinaysaa, waxayna ku samaynaysaa improvement. sidoo kale akhrinta joornaalada iyo newspaperska oo ku qoran luuqadda aad baranayso. hadda inta badan newspapers oo warqada ah meelaha badankooda lagama helo, laakiin internetka ayay ku jiraan oo wayba ka fududahayba. newspaperka magaciisa markaad barato ama websitekiisa waad gelaysaa, kadibna newskii iyo warkii ayaad akhrinaysaa. markaasi taasna luuqadaada waxay ku samaynaysaa kobcin. waxyaabahaas oo dhan haddii aad samayso, waxaad arki doontaa isbeddel degdeg ah luuqadaadii oo soo fiicnaanaysa. si dhaqso ana waad u baran doontaa. ha ka caajisin, mar walba sidaasi samee.